بسم الله الرحمن الرحيم أحمد حسن إبراهيم روضة عبد حسن دمان dadkana daawanaya barnaamijka maalin wanaagsan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan hadaa faahfaahin ka bixiyo 24 saac la soo dhaafay xaaladda guud ee degmooyinka gobolka Banaadir amnigeedu waa mid iska caadi ah markii loo eego maalmihii hore markaan ka hadlayno isku socodka dadkii gaadiidka iyo magaalada furnaansheeda saak waa mid iska caadi ah waxa shaqeynaya goobihii ganacsiga ama mehradihii ku yaalay degmooyinka gobolka Banaadir suuqadii sida suuqa weyn ee Bakaaraha suuqa degmada Xamrweyne iyo suuqa Madiina oo saddexda suuq ugu weyn magaalada Muqdisho marka ganacsiga caadi ah loo furay dadkana sida caadiga saak waxay u soo kala heeyeen nolol maalmoodkooda inay raadsadaan qaar kamid ah degmooyinka soo maray intaan ku guda jiray socdaalkeygana wax hadda oo saameyn ama dhibaato weyn aan ka soo la soo kulannay ma jirin waxa kale oo inta dheer in roobkii xagayga magaalada Muqdisho oo maalmihii la soo dhaafay uu ka daayay roobkaas oo inta badan saameyn ku yeeshay dadka barakacayaasha ama dadka IDB-yada ama xiriyaha barakacayaasha ku jiro gudoomiyaha degmada Wardhiigley ayaa dhawaan waxay codsatay in degmada xilligan ay qarka u saaran tahay in gabi ahaanba biyaha aad ay ugu fatahaan waxna loo qabto qaar kamid ah dadka barakacayaasha u tagtana waxay dalbadeen in la soo gaaro gurmad ama hooy oo habeenkii roobka daayay ay ka galaan sidoo kale waxa kale xusid mudan in roobkan dhanka kale dadka ay ku diirsadeen walow saameyn oo watay oo jidadka qaar ee magaalada Muqdisho ay go'een sabab la xiriirta roobkii oo biyo fariis ku sameeyay awgeed hada dhanka kale ka warbixiyo xaaladaha guud ee caafimaad ee degmooyinka gobolka Banaadir waxa dib loo furay isbitaaladii iyo goobihii MCH-yada iyo xarumihii caafimaad ayaa si guud u shaqeynaya goobihii waxbarasho inkastoo dawladda xarumihii waxbarasho imtixaanadii kadib aan dib loo furin oo fasax lagu maqan yahay hadana waxay ardayda saaki u kala heeyeen dugsiga quraanadii iyo waxbarashadii caadiga ahayd dhanka kale marka ka hadleeno amniga magaalada Muqdisho toddobaadkan ama toddobaadadii la soo dhaafay mid iska caadi ah walow deegaanada ama gobolada Soomaaliya oo xuduudka la leh caasimada Muqdisho ee mararka qaar ay wax ka dhacaan marka si guud amniga waa iska caadi ah ugu dambeyn marka hadalhaynta magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa waxa ay tahay arinta ku aadan la tashiga madaxweynaha uu sameeyo in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhawaan lagu soo dhawaaqo arintaas oo madaxweynaha dadka siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada iyo xildhibaanada qaarba oo toddobaadadii la soo dhaafay oo la tashi ku waday dadka marka inta badan waxay u dhigtaagayaan ra'iisul wasaare ceekee la keenay doona iyo noqon doona waa kuma ra'iisul wasaaraha cusub arintaas hadalhaynta ama goobaha lagu shaahay ka jirto dhalinyaradan isboortiga ee hadalhayaan marka intaan ku guda jirno barnaamijkeena warar kale hadii wax nagu soo kordhaan barnaamijkeena si live ah ayaan ugu soo gudbin doonaa daawadayaasheena waan idin salaamayaa Roodo iyo Axmed Xasan Ibraahim iyo teamka barnaamijka maalin wanaagsan